غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى مركب كواد مهد اسكاله إلهي noo suurtageliyey caawa inaan isugu imanno beyt buyuudda alla ka mid ah annagoo insha allahu tacaala wax isaga sheegi doona ilaahay diintiisa un wax ka mid ah. nadwadan hadda aan u fadhino waa nadwo aan ugu magac daray nadwatu nusratu nabiyi raxma, oo gargaarka nabigii raxmadda sala allahu calayhi wasalam. nadwadan waxay daba socotaa ama waa ay salka ku haysaa xawaadiid ama dhacdooyin dadka intooda badan ay la socdeen oo maaragtay guud ahaan caalamka saameeyey oo laga dareemahayey. dhacdooyinkaas oo ahaa in dowlado Yurub ku yaala ay in dhawaale amaba maaragtay bilihii lasoo dhaafay ugu dambeeyey ay soo baxeen maaragtay dadyow aanan muslim ahayn oo si toos oo badheer ah oo ugu gafahayo waxyaabaha muqadasaadka ah ay muslimiintu weyneeyaan oo xurmeeyaan. waxaad arkayseen maaragtay sida qur-aankii kariimka ahaa in ay qolyo intay qaadaan ay gubaan, qolyo kale inay nabiga sala allahu calayhi wasalam ay meel uga dhacan oo aflagaadayaan. marka waxaa ugu dambeysay ugu cusbayd dalka faransiiska saxiifaddii magaca xumayd ee kaarta qabtay oo mar labaad dib ugu dhiiratay muddo 30 beri ka hor ah inay maaragtay sidii ay samayn jirtay ay samayso. waxa cusub waxa weeye saxiifadda ma ahe maaragtay mowqifkii dowladda dalka faransiiska ay qaadatay madaxweynaha dalka faransiiska Emmanuel Macron oo dadka dunida ku nool intooda badan aad iyo aad uga yaabiyey, yani xataa galbeed iyo islaam isugu jira. azmadaasi way soo daba jitamaysay, hadda waxay maraysaa maalinteedii 29aad. bulshaweynta muslimka ah ee ku nool daafaha caalamkana ololo waxay kaga hortageen ololo ah in la qaadaco badeecooyinka faransiiska. marka caawa waxaan isleeyahay waa habeenkii 30aad maaragtay azmada ay weli sii socoto, dowladda faransiiska ayna ku adkaysanayso, weliba ay sii tasciidinayso oo muslimiintii ay u caga jugleynayso. muslimiintuna guud ahaan caalamka ay weli mowqifkoodii ay maaragtay sii adkeynayaan. marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa marka nadwadan loogu nusreynaya nabiga sala allahu calayhi wasalam in bal maaragtay culimmadeenna insha allahu tacaala aanu ka maqalo iyagana waxyaabaha ay maaragtay ay u arkaan ee munaasabka ah ee ku saabsan azmadan iyo halka ay ku dambeyn doonto insha allahu tacaala. marka waxaan rabnaa culimmada nagala qayb qaadanaysa in wada garanaysaan nadwadan waxay kaga qayb qaadan doonaan 4 mixwar. afartaas oo kale ah sidaad cinwaanada aad kusoo aragteenba sheekh cabdilqaadir boobe oo maaragtay ka hadli doona nabiga sal ll ly slam, yani shaksiyadda loo gafay ee weliba hadda aad maaragtay buuqa badan u dhalisay waa shaksiyatu nabiy moxamed sala allahu alayh wasalam, oo ay gaaladu wax badan oo beena ka sheegayaan, si xunna u suuraynayaan. marka shaksiyaddaasi sidee bay ahayd? cinwaankiisuna waxaa weeye rasuulullah alraxmatu lmuhdaa, rasuulka alle raxmaddii dadka loo hibeeyey ama loo hadiyeeyey. waxaa ku hegi doona insha allahu tacaala fadiilatu sheekh doctor maxamuud shibli oo isagana ka hadli doona waajibuna tijaaha alisaa'ati ilaa muqadasaatina, waajibka ummadeenna muslimkaa saaran, ama ha ahaadaan bulsho ama ha ahaadaan xukuumaad ama ha ahaadaan shaksiyaad waaweyn, waajibka ka saaran marka loo gafo muqadasaadkeenna waaweyn sida nabiga iyo kitaabka iyo alle. waxaa ku xigi doona fadiilatu sheekh maxamed cabdi umal oo insha allah ka hadli doona xuriyatu tacbiir wasdiwaajiyatu lmacaayiir. xuriyatu tacbiirka ama xuriyatu lqowlka waxaa la yidhaahdo oo gaaladu u adeegsanayaan gafka noocan oo kale ah
iyo inaynan ka run sheegaynin yani waxa ay u adeegsanhayaan marka ay imaato muslimiinta iyo marka ay imaato dadaan muslimayn. waxaa ku xigi doona fadilsheekh muuse طaahir aweys oo ka hadli doona kayfa tansuru nabiyaka, adigu ka shaksi muslim ah nabigaagii markii la yidhaahdo waxbaa laga sheegay sidee baad ugu gargaaraysa. marka insha allahu tacaala hadalka waan dheereeyey, waxaan rabaa inaan uga baxo. waxaan ku bilaabaynaa fadiilatu sheekh cabdulqaadir boobe si uu maaragtay inoogu qaada dhigo nabiga sala allahu alayh wasalam iyo suuradda dhabta ah ee ilaahayna nooga sheekeeyey siiradiisa iyo hadkiisana aanu ku hayno xukumu ahaa iyo tasawurka xun ay gaaladu rabta inay ka bixiso. falyatafadal mashkuuran majuuran. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، إن شاء الله تعالى kelmadaydu waxay noqon doontaa oo waqtigeedu uu kooban yahay ciwaankaa laynoo tilmaamay ee rasuulullaahi raxmatu lmuhdaat. rasuulka ilaahay waa naxariis allah subxaanahu wa tacaala uu u hibeeyey, khalqiga u hibeeyey. shakhsiyaddan aynu rabno inaynu ka sheekayno 15 daqiiqo iyo 20 daqiiqo iyo saacadu kuma soo koobi karno. waa shaksi allah subxaanahu wa tacaala uu doortay, khalqigiisana alle subxaanahu wa tacaala uu ka doortay oo doorashadii ilaahay baa ku dhacday. khalqiga ilaahay subxaanahu wa tacaala ka fadila, wuxuuna ku karaameeyey oo ku sharfay oo ku maamuusay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa uu ku aamino risaaladii iyo waxyigii iyo fariintii khalqiga la soo gaadhsiinayay. fariintaas ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqiga uu soo dhiibay ee khalqiga la soo gaadhsiinaya nebi maxamed lagu aaminayna waa raxmad iyo naxariis. allah qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. shaqada nebi maxamed baa la tilmaamayaa iyo wadiifadiisa. alle wuxuu leeyahay kumanan dirin uunka iyo caalamka inaad naxariis u tahay mooye wax kale kumanan dirin. waxyiga loo soo dhiibay baa naxariisa. dhaqanka iyo habdhaqanka nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ee waxyiga uu u fasirayay, khalqigana u gaadhsiinayay oo qowl iyo ficil ah, ayaa iyada lafteedu naxariis ah. walidaalika baa nebigeenna salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh asagoo naftiisa inoo tacriifinayo ina baraya oo wuxuu leeyahay xadiiska alimaamu daarimi fii sunanihi uu ku warinayo, bayhaqina fii shucabi اliimaan uu ku warinayo, cabdurasaaqna fii musanafihi min xadiisi abi hurayra radi allahu canhu, nebigu wuxuu ku leeyahay inamaa ana raxmat muhdaat, anigu waxaan ahay naxariis laydiin hibeeyey baan ahay buu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam. hibada yaa bixinaya? allihii subxaanahu wa tacaala khalqiga abuurtay baa bixinaya. waxaa hibe ahaan loo siinaya deeqda ah ee minada ilaahay ugu deeqayo khalqiga ugu deeqayana waa risaalada iyo waxyiga nebi maxamed uu xambaarsan yahay. saa darteed baa nebigu wuxuu leeyahay inamaa ana raxmatun muhdaat, anigu waxaan ahay naxariis laydiin hibeeyey baan ahay. waa hibadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bixiyey nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyo mabaadida uu waday khalqiga uu gaadhsiinayo, waana raxmadda iyo naxariistaas. allah baa rasuulkiisa markuu ka warramayay ina barayay ayuu ilaahay wuxuu ku tilmaamay 2 magac oo aada iyo aada u qiimo badan oo asmaada ilaahay subxaanahu wa tacaala ka mid ah. laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حلوت المامي يدو النبي قال لنا بريه يدو الشخصية لينو قيحيه يدو مواصفات كيسية المامه سخلقي الله بريه قارهان مؤمنين تسيقار الله بريه بإلهي وحليه وحائدين من رسول حقيقة أي دبي سوكو أدكتها وحائدين كإذن دبي مشاقدين أي كجرت كاسو إذن تريد بدن وإذن نحريس بدن والله سبحانه وتعالى مقعيدا نبي صلوات الله وسلام عليه مقعيدي سمركو إنا برأي ومقعيدي سأوتري وحاكم لها والنبي التوبة والنبي الرحمة اسماء النبي محمد صلوات الله وسلام عليه إيا مقعيدي سوحاكم لها النبي توبة سببتي سلو أقبلي يا نبي الله سبحانه وتعالى نحريستا الله أوسودي بي رحمتنا إلهي سبحانه وتعالى يا نحريستا الله أوكوغا لديستي تلمان يصفه وغدقا صحابة النبي محمد صلوات الله وسلام عليه ما كمر خاتك عيب إن كبضا يعني مركا بغلال صحابة النبي محمد صلوات الله وسلام عليه كمضا ayaa habdhaqankii nebi maxamed ay la noolaayeen iyagoo ka turjumaya bay ka warameen naxariista iyo turitaanka iyo raxmadda nebi maxamed salawaatu llaahi wasalaamu calayh waxaa kusinaya xadiiska bukhaari fi ladab almufrad uu ku warinaya min xadiisi anas ibni malik baa wuxuu leeyahay kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam raxiiman laa yaأtiihi axadu ilaa wacadahu waanjasa lahu in kaana cindahu ويري نبي صلى الله عليه وسلم عليه وحو أهامدنا حريص بدن عند النبي محمد كاغا ورميسا وخادمك نبي محمد وطبان سنة وشقيني لقنك نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه هي أخلاق ديسي هي حبلقنك وبلشد أولا دقميين السوق قورنا وها النبي بمدنا حريص بدن أيوها حبلقنك سواناك سواحا كمد الروح أمان وإيمانين إلا وحى النبي محمد قعنتي سكوتشرا يعني مركا ديف أدونه أيوه وحكيه لي النبي بلان بأقادي بلان تنوى أفولنا يا نبي صلوات الله وسلام عليه إن كان عنده هذه وحى بلان قاضي وحنبي محمد صلوات الله وسلام عليه أكتي سيارة شخصي إلهي لابتي سأوى سعيي oo waji furan iyo qalbi furan umada ku soo dhaweynaya oo galad hadii ilaahay ku rooyay gacanna ugu daraya bini aadamka inta badan laga mehelo ma laga hela bini aadamka inta badan laga mehelo dad ilaahay subhanahu wa ta'ala u doortay oo sida nabigeena sallallahu alayhi wasallam oo kala ah baa laga helaa tilmaamaha noocaas shicaarka iyo astaantiisa iyo tilmaamaha nabi maxamed lagu yaqaana waxay ahayd raxmad iyo naxariis raxmadiisaasi waxay gaadhayso ka wada faa'iideysanayeen gaal iyo muslimba waa ka wada faa'iideysanayeen bal noolaha iyo nafleyda oo dhan baa ka faa'iideysanaysa xataa xayawaanaadka ayaa raxmadda nebi maxamed ay gaadhaysay الدولابي في الكنى وحكوري أبو نعيمنا في المعرفة وابن عساكر في التاريخ إن اللي هذا الصحابي عمر بن حبيب اللي هذا اللي قورنا رضي الله عنه مرفوعا خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر وحاهوغي أيان درو إيا النصيب درو أي كل عضي أدون قلبي إلهي سبحانه وتعالى بشر كأن الرحمة إيا الحريص القليل نبي محمد كمركا أفلقا دينيا ومدك شعار كيسو أها روحا نحريست إيا الرحمة بشر كاللغي قديي وروح أيان درد إيا نصيب درد أي كل عضي أبو داود الترمذي وحيورنيا شعار النبي صلوات الله وسلام عليه إيا الرحمة صدو أها وليه هي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء كوا نحرستا
oo raxmadooda iyo ludfigooda iyo naxariistoodu khalqiga ay gaadho baa ilaahay u naxariistaayo naxariistiisa u hibeeyaa u naxariista kuwa arlada dhexdeeda ku nool allaha samaawaadka iyo khalqigiisa ka koreeyaa idiin naxariisanaya nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh marar badan buu raxmadda uu ka hadlayey oo axaadiista iyo sunnadiisa haddaad fiiriso waxaa ka mid ah laysa mina man lam yarxam saqiirana wa yuwaqir kabiirana yacni waxaa ka mid ah ruuxa aan midka yaga yar u naxariisan naga mid maaha kaayaga weynna aan weyneyn ninbaa majaalistii nebi maxamed khayrka iyo samaha uu ku faafinayay saxaabadiisa iyo jiilkii uu tarbiyeynayeyna uu ka waraabinayay ceelka saafiga ah ayuu nin weyn oo odaya soo taltallaabsaday markaasaa loo waasicin waayey fadhigii baa loo ballaarin waayey nebigu sidaasuu ku yidhi nin la yaabay nebi maxamed oo ilmaha dhunkanaya wuxuu ku yidhi awa amliku an nazaca allahu min qalbika araxma miyaan anigu wax kuu hanan karaa qalbigaaga haddii ilaahay naxariista uu ka yacni markaa uu ka qadeeyey bal gaaladaa raxmaddiisu ay gaadhaysay xataa acdaa'uhu cadowyadii nebiga sala allahu calayh wasalam iyo kuwii la dagaalamayey kuwii dhiigga ka daadiyey kuwii dhoollihiisa jejebiyey baa rasuulkeenna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaa la yidhi habaar markaasuu yidhi la iima soo saarin inaan mid wax nacdala oo wax habaara aan ahay ee waxaa la ii soo saaray raxmad iyo badbaado iyo samata bixin khalqiga inaan mugdiga ka saaro iftiinka iyo nuurka iyo iimaankana u saaro imaamu muslim fii saxiixi iyo axmed waxay warinayaan min xadiisi abi hurayra radia allahu canhu qaala qiila yaa rasuula allah udcu lilmushrikiin gaalada habaar baa la yidhi markaasaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi qaala inii lam ubcas lacaanan inamaa bucistu raxma la iima soo saarin mid wax nacdala inaan ahay laakiin waxaa la ii soo bixiyey raxmad iyo naxariis baa la ii soo saaray buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh riwaayo kale bukhaari fii taariikhi uu ku warinayo inamaa bucistu raxma walam ubcas cadaaban waxaa la ii soo saaray raxmad iyo naxariis cadaab la iima soo saarin inaan dadka cadaab iyo halaag ugu duceeyo buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh xagga ixsaanka iyo habdhaqanka wanaagsan iyo dulqaadka iyo sabirka iyo nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi raxmadda iyo waxyigu inay dadka gaadhaan sida uu uga fikerayo fiir cadowgaagii oo dhibaato ku gaadhsiiyey baryada nebi maxamed oo la ajiibayo samadu u furan tahay haddana nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi kama aarsan inii lam ubcas lacaanan inamaa bucistu raxma naxariis baa la ii soo saaray buu yihi nebigu sala allahu calayh wasalam haddaan u gudubno bukhaari iyo muslim waxay warinayaan abu hurayrana laga warinayaa qadima linabiyi sala allahu calayh wasalam dufayl ibnu camr addowsi wa asxaabu dufayl ibnu camr addowsi oo qabiilada dows ka tirsanaa iyo asxaabtiisii oo dacwo uu nebi maxamed u diray oo fariin iyo risaalo loo dhiibay baa nebiga u yimid markaasay waxay yidhahdeen faqaaluu yaa rasuula allah ina dowsan casat wa abat dows ilaahayna way caasiday dacwadii iyo risaaladii iyo fariintii xaqa ahayd iyo dhambaalkii aanu u wadnayna waa diideen maxaa laga doonayaa marka fadcu llaha calayha habaar inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni alle subxaanahu wa tacaala uu jirid gooyo oo u baabi'iyo markaasaa faqiila waxaa la yihi halakat dowsun dows waa halaagsantay dows waa halaagsantay faqaala wuxuu yihi allaahuma hdi dowsan waأti bihim ilaahu dows hanuuni oo allow keen iyagoo hanuunsan qofku wuxuu wax kugu tarayaa wuxuu wax kugu anfacayaa wuxuu yacni garab iyo gaashaan kuugu noqonaya inaad iimaanka iyo islaamnimada aada ku walaalowdaan nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waa shaksiga noocaasa ee raxmaddiisa iyo naxariistiisa iyo ludfigiisa ay ka markhaati kaceen kuwii dhowaa iyo kuwii fogaaba ay ka markhaati kaceen haddaynu suwar ka mida aynu soo qaadano naxariista nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh
naxariista nebigu khalqiga oo dhan bay wada gaadhaysay weliba naxariistiisu waxay aada ugu sii badnayd dadka bulshada qaybaha sharaaixda bulshada ka mid a ee markaa dhibta u nugul sida ciyaalka iyo dumarka iyo araamisha iyo agoonta dadka noocaas anas ibnu maalik wuxuu leeyahay kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam arxamu nnaasi bilciyaali waasibyaan ilmaha iyo caruurta midka ugu naxariis badan buu ahaa halka reer galbeedku maanta hooyo 6 caruura dhashay iyagoo cadaalad sheeganaya ayagoo raxmad sheeganaya ayagoo caalamul islaami dadka ka didinaya oo ka soo qaxa leh hooyo 6 caruura dhashay oo caanuhu ka da-ayaan ay ilmaha ka qaadanayaan nebi maxamed naxariistiisa waxaa ku tusaya wuxuu aada u muraacaynayay axwaasha iyo xaaladaha dadka xataa cibaadaadkii iyo takaaliiftii sharciga ayagoo gudanaya ayaa nebi maxamed naxariista dadka uu faraya fii saxiixayn min xadiisi abi hurayra salaadii iyo cibaadaadka aynu tukanayno innagaa dani inoogu jirtaa adduuni iyo aakhiraba faa'iidada iyo natiijada wanaagsan innagaa helayna haddana imaamkii ina tujinayay buu nebigu la hadlayaa wuxuu leeyahay idaa sallaa axadukum linnaasi falyukhafif faina fiihim aldaciifa waاsaqiima wاlkabiir midkiin markuu dadka tujinayo salaada hau soo koobo raxmadda iyo naxariista fiir ina waxaan odhan lahayn waxaa weeye salaada dadku ama ha tukadeen ama ha iska tageen waxaa dadka ku jira kii tabarta darnaa iyo kii jiranaa iyo kii weynaa buu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh bukhaari fii saxiixi iyo abu daawuud iyo keyrkood waxay warinayaan min xadiisi abi qataada wuxuu yihi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh inii la aquumu fi salaa uriidu an utawila fiiha salaadaan galaa anigoo doonaya salaaddii inaan dheereeyo fa asmacu bukaa sabiyi waxaan maqlaa ilmaha yar oohintiisa dumarkiibaa salaada nebiga la tukanayay ilmihii yaryaraa iyo ubadkii yaryaraana way xambaarsan yihiin ilmaha yar oohintiisaan maqlaa buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi marka oohinta ilmaha dareenka iyo qalbiga nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ay gaadho wuxuu nebigu yidhi yani fa atajawasu fii salaatii karaahiyata an ashuqa calaa ummihi salaadaydaan soo gaabsadaa necbaysi iyo kohosho aan necbaysanayo ama aan kohanayo inaan hooyadii ku dhibo ayuu yihi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa suwar yani qeyb ka mida naxariistii nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inuu xataa hooyadaa ilmaha yare ay dusha ku sito oohinta iyo erayada uu ka maqlayo qalbiga iyo dareenka nebi maxamed sala allahu alayh wasalam waxbay ka bedelaysay waxaa la mid ah wufuudda u imaanaysa iyo dadka tacliimta sharciga uu barayo ayaga laftooda wuu muraacaynayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiiska bukhaari fii saxiixi uu ku warinayo abu daawuud iyo keyrkiina ay wariyaan maalik ibn alxuwayris ayaa wuxuu leeyahay waxaan la socday wafdi ataytu nabiya sala allahu alayh wasalam fii nafarin min qowmihi nebi maxamed baan u tegey isagoo cilmi iyo xaqii inuu fahmo iyo diinta inuu barto iyo inuu fariinta waxyiga uu soo qaato ugu tegaya anigoo la socda jamaaco qoomkaygii ka mid qabaa'ilka carabeed wufuud bay soo dirsanayeen markaasaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu leeyahay wa kaana raxiiman raqiiqa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu ahaa mid naxariis badan isla markaana turid badan waa saxaabigii labaad wuxuu leeyahay markuuna arkay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh falamaa ra'aa shawqana ilaa ahaaliina baahida iyo kalgacalka iyo hilowga aanu u qabno xaasaskaygii markuu arkay ayuu wuxuu yidhi irjicuu fakunuu fiihim wacallimuuhum yacnii u laabta xaasaskiinniyo dhexdooda ahaadoo diinta iyo cilmiga sharciga bara saasuu nebigu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh wasalluu faidaa xadarat الsalaatu falyu'adin lakum axadukum walya-ummakum akbarukum
hadday salaaddu idiin soo gashana habdhaqankii salaada iyo nebi maxamed qaabku u tukanayay waad aragteen. nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ku yidhi salaada yacni markay idiin soo gasho ruux idinka mid haydiin aadaamo kiina idinku weyna haydin tujiyo. waa suwar kooban oo ina dareensiinaysa raxmaddii iyo naxariistii nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. haddaynu nidhaahno shamaaishii iyo habdhaqankii nebi maxamed aan ka sheekayno hal muxaadaro iyo hal darsitoonna laguna soo koobi karo. intaas waxaan rabaa inay muqadamo iyo gogoldhig u noqoto mowduuca insha allahu tacaala ay qaadaadhigi doonaan ama hordhac u noqoto culimmada iga dambaysa ay qaadaadhigi doonaan. allah subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa cimrigeenna inuu caafimaad ku lamaaniyo, cilmigeennana camalfal uu ku lamaaniyo, cimrigeennana alle subxaanahu wa tacaala taqwo iyo alla kacabsi uu ku lamaaniyo. wajazaakum allahu khayra. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي خيرك الله ينوافجيه خاتمنا الله ينصب بيه. أفر قضب عن ربنا عن كهد له مدبنا سدح قضب عن كشعه وقتي وكوبان درتي شيخا وحنكوير مكان سوفر يستور وحن نسير الله قاعد لي wuxuu yidhi twitter baa soo gacabay laga bartay iyaroo kooban ujeeddadaada ku dhammee. waxaan rabaa inaan idhaahdo intaana qodobada gelin diinta wax laga sheego waa dagaalka xaq iyo baatilka qayb ka mida waay. inta xaq jirana iyo baatil jiree loolanka iyo hardanku ka dhaxeeyo, hardanku gacanna waa noqdaa, afna waa noqdaa, adinna waa noqdaa. in la iscaayo, la isdhaleeceeyo, wax laga sheego haddana ma bilaaban, horena waa u jirtay, haddana waa jirtaa, dibna waa jiri doontaa. tanina waxay ka mid tahay uun mabda'ii asaaska ahaa ee qur-aanka iyo sunnadu sheegeen ee loolanka iyo hardanka xaqa iyo baatilka. intaa ka horudhaca kadib waxaan rabaa inaan ka hormariyo maxaa ina saaran, maxaa laynaga rabaa baa ka horeysa. maxaa ina saaran oon samaynaa iyo seen u dhaqanaay waxaa ka horeysa sidee baa layloona dhaqmayaa. qodobadaas waxaan rabaa 3 qodob qadiyood inaan wax ka tilmaamo. qadiyada koowaad ujeeddadu maxay tahay? ujeeddada mar mar nabiga la caayayo, mar qur-aanka la caayayo, mar islaamka o dhan la caayayo, mar dadkiisa la caayayo, marba qaab loo caayayo. ujeeddadu maxay tahay? 3 baan ka soo qaadanayaa ujeeddooyinka. kow, islaamkan xawliga ku socda in la xakameeyaa la rabaa. guryahoodii buu gelayaa, dadkoodii baa islaamaya, waxay isku raacsan yihiin diinta xawliga ugu badan ku socota dalkii gaalada waa islaamka. haddaad riboodyada akhridaanna kaniisadihii baa loo bedelayaa. hadda South Africa niman ka yimid oo kaniisad weyn gatay oo masaajid u bedelaya oo taakula rabaa inoo jooga. xawliga diintani ay ku socoto si loo hor istaago, dadku waxay ku daadanayaan oo jecel yihiin haddaad rabto inaad ka celiso inaa caydama in dadka loo foolxumeeyo oo horta dadkoodan islaamaya islaamka laga hor istaago oo islaamka guri walba gelaya la xakameeyo. waa ujeeddadu mid waa middaas. si dadkii aad uga celiso, hadda markaan tahriibka ka hadlayna soo dhibkiisa kama sheekayno, markii dagaalka sokeeya laga hadlaya ceebihiisa soo lagama sheekeeyo, markii ribada laga hadlaya dhibkeeda soo kama sheekayno. islaamkan in la caayo, carruurta lagu barbaariyo, dadka la nacsiiyo, ceeb iyo fadeexad laga dhigo oo kii waday la caayo oo diintii la caayahay, waa dadkan islaamaya in laga hor istaago wey. taasi waa hadaf koobaad. hadafka labaad ee la leeyahay waxaa ka mid a islaamkii waa soo noolaanayaa. mabaadi'dii kaloo dhan baa fashilantay. hanti wadaag baa fashilmay, hanti goosad baa fashilmay, dimuqraadiyad baa fashilantay, calmaaniyad baa fashilantay. khiyaarka beddelka ee soo haray waa islaamkii. muslimiintii haddaba
in la nacsiiyo oo la caayo oo la qodqodo oo ceebo loo raadiyo si kalsoonida islaamku inuu badbaado yahay qalbigooda looga saaro ama kalsoonidii loo daciifiyo wax loogu dhimo de markii albaabkan soo xirmo ee kan xirmo wanaaggii islaamka bal islaamka aadna waxay arkeen dhaqaalihii ribadu markuu fashilmay xataa kuwii dhaqaalayahankii gaaladoo leh system ama qaab dhaqaale oo islaamka ka fiican ma jiro waa in la caayaa marka si loo dibdhigo haddii xataa la joojin waayo kalsoonida islaamku muslimiintu ay u hayaan inuu isagu xal yahay iyo isagu wanaaggii yahay isaga in lagu badbaadayo shacab iyo dowladba loo noqdo tii si looga hortago lafteeda waa in dadkii muslimkaa laftiisa kalsoonidii laga dilo shacab hadday yihiin xukuumaad hadday yihiin iska badaa dadkii kale saa darteed kacdoonkii islaamku uu dib u soo noolaanayey ee mabaadidii kala bedelayey baa la rabaa kalsoonideennii in wax loo dhimo waxaa kaloo la rabaa hadaafta ka mid a cayda diinta iyo islaamka in shay dabiici oo caadi a laga dhigo si loogu celcelinayo in laga dhiga sidii qof la caayey iyo joornaal la caayey iyo hadda waxaan maraynaa kaas fiiri waxaa lagu dhihi markii nabiga iyo diinta la caayo madaxda hebelba waa la caayaa jornaal hebelba waa la caayay islaamka jornaalkao kale way in lagu dhaha la rabaa oo lagaga dhigo wax caadi oo haddii la caayo qiiradii iyo xamaasadii diineed iyo inaad ka dhiidhida waxu dhinkiisii in lagaa dilaa la rabaa oo caadi a lagaaga dhigo in la caayo waa caadi inahaasi waa saddexdaa waxaan kaga gaabsan ujeeddooyinka la raba in laga gaadho waxaan la samaynayo qaabka loo marayo iyo qaabka arrintaa loo xaqiijinayo waxaad ku garan kartaa iyadana saddex baan ka soo qaadi wax gaara ma ahee diintao dhanba wey mar islaamka o dhan ba wax laga sheegi mar qur-aanka wax laga sheegi mar nabiga wax laga sheegi mar axkaamtii qaar ka mida wax laga sheegi xuduuddii gacangoyntii iyo rajmigii baa la caay mar xijaabkii iyo niqaabkii baa la caay mar guurkii iyo furiintii iyo waxaa la caayi talaaqii iyo tacadud zawjaad baa la caayi mar dhaxalkii iyo miiraad baa wax laga sheegi mar baaburiqi baa la geli meel keliya ujeeddadu maaha marka ujeeddadu nabi maaha fa innahum laa yukadibuunaka walaakina adaalimiina biaayaati llahi yajxaduuna waay diintana la diidan yahay marka waxaa laga hadlaya hal baab keliya maahee meel walba dhagaxtuurka tan markaad ka hadasha tan lagula wadi maayo tu kalaa lagu dhici ujeeddadu islaamka oo diinta inay tahay mar xaggaa laga dhagax tuuri mar xaggaa laga tuuri mar xaggaa la tuuri mar xaggaa la tuuri nabi keliya looma jeeda diintoo dhan iyo dadkii keenay baa loo jeedaa manhajka waa la isticmaalayaa meel laba inaan la dhaafin oo meel walba wax laga sheego qof walba inuu wax ka sheegana waa qodob labaad oo la isticmaalayo dad gaara maaha waxa diinta wax ka sheegaya mar siyaasiyiin baa maagi mar hay-ado xuquuq bay u doodaan la yihahdaa wax sheegi mar waxaa kuwa kaniisadaa wax sheegi mar qole mulxidiina wax sheegtaa lagu dhihi kuwa ridoobay baa wax sheegay baa lagu dhihi soo maartay dadka markaad eegto diinta wax ka sheegaya saxafiyiin baa wax ka sheegay baa lagu dhihi markaad eegto qaybaha bulshada kala duwani qaybaan ka qayb qaadanayni ma jiro waa shaqo la wada qabanayo isdhammaystiraysa waa maanta siyaasi markuu hadla waxaa lagugu sawiri siyaasiyiinta balaayada wadda markuu joornaal hadlana saxaafad maxaan ka qaban karnaa baa lagu dhihi markay kaniisad hadashana waa dagaalkii diimaha lagu dhihi markii hay-ada xuquuqa ka hadlayadaana arrimo gaaro iyaga khuseeyay wataan baa lagu dhihi laakiin hawshu markaad jumlada isku ururiso sawaaro maanaa dhihin takfiirku waa labo mid jumladoo dadku waa wada gaalo mar dhah iyo mid tafaariiqoo kalboqolo gaaleeyo waxbana aan ka tegin dukaamada suuquna nina jumlo gadaa nina tafaariiq buu gadaa laakiin maxaa lagu heshiis yahay alaabta hala wada gado waa wada beec marka tafaariiq baa lagaaga dhigi laakiin waa ilka abeeso hoosta ka xiriirsan waayo waa wax la rabo kolboqolaa lagu tusi kolboqolaa soo bixiyo dowr qaadan marka manhajyada labaad ee la raacayo manhajka loo raacayo
waa qaybaha kala duwan inay ka wada qayb qaataan. qodobka saddexaad ee manhajka la raacayaan in ka tilmaami karo waa in la joogteeyo. marba soo qofka xanuunsan in la cabira maydaan arag, waxoogay markii la joogaba waxbaa laynagu qaadi, cabirkeennu qiirada iyo inaan ka gubanayno iyo weli iimaanka dareen kale inugu hadhay baa kolba la cabirayaa. kolba ushaa layna gelinayaa dee halkay maraysaa halkay maraysaa halkay maraysaa. haddaad aada u kacdoontana waxoogay baa loo yarkaadin, haddana waa lagu tijaabin. marka tijaabo joogtaa in lanagu wado oo marba layna cabiro, dhiiggeenna la cabira meeshuu marayo, iyo damiirkeenna iimaan iyo qiiradeenna iimaaneed intay nooshahay lagu cabiro. wasaailka la isticmaalayo mar saxaafad baa lagu isticmaalayo, saxaafadda xoriyatu tacbiir la lagu dhihi, saxaafaddana dadkoo dhan baa wada akhrinaya. mar aqlaam musta'jara qolyihii ridoobay sidii salmaan rushdiya ayaan xirsi iyo baa la isticmaali. idinkaa muslin ahaa, idinkaa ka soo tegay, idinkaa hoos wax u garanaya, dadkiina idin rumaysan baleedaan ka tagay waatane wax qora, waa lala hagaajin. marka maalin waxaan usoo qaatay ayaan xirsiinaydan garanayn ba gabadhi ayaan daran ahayd. waa tii naagta qaawan faatixada intay ku soo qortay, naag qaawanoo tukanay soo sawirtay wey, tuugii la socday foqooqna wiil baa toori wadnaha iyo xabad ka taagay si fiican magaalada bartankeeda xilli barqa Amsterdam. nin rag u ahaa, ilaa hadda xabsi baan ku ogaa. marka kolba waxaa la adeegsanayaa wejiye cusub. mar saxaafad baa lagu adeegsan, mar magacyaa lagu bixin, argagixiso weeyaa lagu dhihi, xagjir weeyaa lagu dhihi, seeflabood weeyaa lagu dhihi, dibu socod weeyaa lagu dhihi. magacyo badan baa kolba wax lagu dhejino wixii dadku nacaan, dhaqanka dadku necab yihiin oo dhan ba adiga laguu tiirin. inta iyagu qaraxa soo abaabulaan baa lagu dhihi islaam baa sameeyey. ka iyagu ay samaynayaanee yuhuud carruurta laynaysana argagixisa maaha, kii muslim sameeyana magac xun buu leehay. ujeeddadu maxay tahay? diintaa dadka lagu dirayaa, hadafkii baa la xaqiijinayaa. maxaynala gudbo inaan samayno? 3 daqiiqa ay dhimashan iyo 10 daqiiqo maxaynala gudboon inaan samayno? hadafkan diinta dadka laga hor istaagayo waxaynala gudboon naf iyo maalba inaan ku bixino diintan fidinteeda. aynu niraana diintu way fidiya muutuu bikaydikum, ceel la dhinta. ninkan muxuu ka xanaaqay? macron waad arkaysa soo maaha, gabadhii maali laga soo daayey, islaantii waa yeelkahayd, markay garoonka ku tiri uu soo dhaweeyeen uu hadla rabay waan islaamay, intuu wejigu madoobaaday buu orod kaga baxay meeshii. wax ka badan oo la sameeyo la caayo dadkoo islaama uga daran, waayo wixii waxaan loo samaynayo o dhan hal bacaad lagu lisay inaad ka dhigta ma rabtaa. diintan iyo wanaaggeeda iyo axkaamteeda iyo caqiidadeeda inaan fidinno waayo. kharash badan inaan ku bixinno weeyo guryahooda si ay ugu sii fidi lahayd, kaniisadaha loo gadan lahaa, masaajiddu u badan lahaayeen, guryahooda gudihiisa bayta wabarin walaa madarin aan ka dhigno waayo. taasi waa dadaalka aan bixinay runta ah. waxaan oo dhan fashilinaye wax kastoo baaloon oo la afuufo hawada ka saaray waa kow. qodobka labaadi shubuhaadka, tashwiishka lagu furayo axkaamta islaamka, iyo ku jaahiloo la isticmaalayo, ku dan lahoo ridooboo la isticmaalayo, dadka caamada ee muslimiinta shakiga iyo waswaaska laga gelinayo. mar walba culimmadu inay u taagnaadaan sida qur-aankuwa mar kastoo ay wax qaldan sheegaan looga jawaabaye, wax kastoo khaldan oo la sheegaba jawaabteeda in laga siiyo. waana xadiidkii xasankaa la amray, yaxmilu hada alcilma min kuli khalafin cuduuluh yanfuuna canhu taxriifa alghaaliin waintixaala almubtiliin wa ta'wiila aljaahiliin. culimadu inay u taagnaadaan way. mid jaahiloo si khaldan wax u fasiray, mid baatil wato inuu ku hoos gabado doono baatilkiisa uu huwiyo, iyo nin dan leh oo si khaldan u fasiray. intaas si khaldan u fasiraya nusuusta ama ay ku qalloocatay, had iyo goor shubhada radinteeda, xaqa caddayntiisa, axkaamta sharciga ee wax laga sheegay xikmadda ku jirtaiyo wanaagga iyo toosnaantooda inay sidani saxan tahay
inay culimmadu mar walba la taagnaadaan oo mujtamaca muslimkaana u caddeeyaan saan diinta looga saarin ama shaki looga gelin, kuwa kalena loo caddeeyo si diinta wanaaggooda ay u soo galaan. muslimiintu xoogga waxay saareen arrimaha islaamka iyo haweenka inay ka hadlaan. markii islaamku haween buu yeelay la yidhi waxa ugu badan ee yurub islaama waa haweenkii mutacalimaadka ay waxbartay. in markay saa u sii daayeen beentii baa runtii la caddeeyey. markay wax akhriyeenna waxayna beentii ogaadeeno xataa naagihii baadiriga hawada islaamaya. marka kaalintaana waa kaalinta labaad ee la rabo inaan qaadanno. kaalinta saddexaad, dhacdooyinku inaan kaga jawaabno mid walba sida ku habboon. qayb in laga aamusaa ku habboon, midaan warkiisaba la maqleen aduu inaadan buunbuunin oo inta la qiimeeyo kani codkiisuna meel lama gaadho. 10 qof maqli maayaan, adu maxaad kun u maqashin? qaar baa in laga aamusa ku fiican oo adiguba alcaan bixin. qaarna wuxuu u baahan yahay in tallaabo laga qaado. tallaabada laba arrimood baa muhiima in la eego. maxaan awoodnaa? maxaan awoodnaa marka la yidhaahdo qof shibilihii iyo dowladii way kala mas-uuliyad duwanaan. maxaan awoodnaa marka la yidhaahdo meelaad ku xoog badan tahay iyo meelaad keligaa tahay way kala duwanaan. maxaan awoodnaa marka la yidhaahdo meelaad gacan qabsi heli karti iyo meelaadan gacan qabsiba heli karin way kala duwanaan. taana waxaa xadidaya maxaad awooddaa waktigaad joogtay iyo meeshaad joogtay ee itaalkaagaa xadidaya. ama cunaqabateyn dhaqaale dowlad baa soo rogi karta, iyadoo ka tabar daranna shacab baa soo rogi kara. in waddan laga caydhiyo dowlad baa wax soo rogi karta qaybo kamid oo hay-ada diblomaasiya. shacabku waddanka inay ka cararaanna dadweyna soo rogi kara. in cunada loo diidayna nin diinaya nabi caayi waa xarbi. xarbiguna biyaha haddaadan biyaad ku weysaysata haysanin intaa isaga biyo siisa ma gabagabaysan kartid, kaama asaxayso. ay xayawaan muxtarama maaha, ha u dhinto oonka. weysadaa ka muhiimsan. ninka lagu yidhi weysadaa ka muhiimsan inaad lacag ugu darto ka waran. aduu halkaa inta ka badan inta bannaan buuxso soo saamaha iskuma ogid. adaad waktiga iga dhammaaday adaa durugsan doona. waxaa xadidaya maxaan awoodaa, maxaase tan ku habboon. sida ku habboon in looga falceliyo dhacdo kastabana xaaladeedana la qiimeeyo, maxaan awoodaana la qiimeeyo. wakti waa igu dhammaaday, raalli ahaada inta daqiiqadii aan ku darsaday. wamahadsantiin, jazakum allah khayr. assalaamu calaykum. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إلهي توفيق لنا وبرشيو. مقدمة يهرع بدن قلي ما يمد وقت يسككومي هاي موضوع عن توسو قليا. قالوا qaasdare galbeedka markay diinteenna iyo nabigeena iyo muqadasaadkeenna ku xadgudbayaan waxay xujo ka dhigtaan wax la yidhaahdo xoriyatu tacbiir ama xoriyatu lkalaam. macnaheeduna yahay ruux xor buu u yahay waxa damiirkiisa ku jira inuu ku hadlo, inuu qoro, inuu camal fanniya ku cabiro. xorriyaddaa wey. marka haddii nebigiina la caayo xor baa loo yahay, haddii diintiina la caayo xor baa loo yahay. waa xoriyatulkalaam waay. mabda'aas oo noo yaalla unbay joornaaladu fulinayaan, inta wax caayaysa fulinayaan, halkaasay ka dhigtaan muxuu ahay xujo ka dhigtaan. ma jirtaa marka waa midda koowaad. horta ka doodi mayno waxa la yidhahda xoriyatu tacbiirka miisaanka uu shareecadeenna ku leeyahay. maxaa ka khaldan, muxuu dawaabid leeyahay ka hadli maayo. laakiin iyaga waxaan kala doodaynaa ama kula doodaynaa isla mabda-ooda rasmi laftiisa, isla mabda-an ay dhigteen oo xorriyada hadalka ah
laftiisaan jecella inaan kula doodno ama aan ku caddayno munaafiqnimadooda iyo laba wajiilanimadooda. qur-aankuna usluubka noocaasa wuu isticmaalay meelaha qaarkood iyadoo khaladku uu khalad yahay yaa haddana mabdii khaladka ahaa si khalada haddana inaad u sii isticmaasho iyo haddana ka sii daranta. 3 miaal haddaan soo qaadno. maalan suurat اlancaam markuu ilaahay ka hadlahayay gaalada mushrikiinta wajacaluu lilahi mima dar'a min alxarثi waاlancaami nasiiba faqaaluu hada lilahi bizacmihim wahada lishurakaaina. aayadda waxay tilmaamaysaa mushrikiintii carabta ayaa xoolahoodii iyo beerahooda hantidoodii bay laba u kala qaybiyeen. waxay yidhahdeen qaybtaa ilaahay baa iska leh, qaybtaana sanamyadanadaa iska leh. in sidaa loo kala qaybiyo oo qaarna ilaahay la siiyo qaarna sanamyada la siiyo miyay saxsan tahay? waxaa ku filayd in la yidhaahdo asal ahaan bayba khaldan tahayba. laakiin qur-aanku meeshuu niqaashka ka galay fiiri, doodda meeshuu ka gelay. waxaa la yidhi markay mabda'a taqriiriyeen oo baatil ah bay haddana waxay uga gudbeen wixii ilaahay ay u magacaabeen oo siiyeen haddii qaybi ka soo tagto intii sanamka ay siiyeen ay ku soo darmado way daynayaanoo waxay leeyiin sanamku waa baahan yahay. intii sanamka ay siiyeen hadduu intuu soo tago qaybtii ilaahay ay siiyeen ay ku darmatana way ka soo celinayaan. marka maxaa laga hadlayaa? war mabda-u sidiisa oo baatil ha ahaado inaad ilaahay wixiisii qaybisaan si ahaantiisu khalad u yahay, laakiin baad khaladkii baad haddana khalad kale ka sii gasheen soo maa. mar kale qur-aanka kariimku wuxuu tilmaamay fii suurati الnajmi alakum الdakaru walahu اlأnhaa tilka idan qismatun diiza. ilaahay bay carruur u sugeen. in ilaahay carruur loo sugo soo sidiisaba mabda khaldan maaha. markaasaa haddana mabdii nooca ah ee si ahaantiisaba khaldanaa bay haddana intay ka sii dareen bay wiilashoo agtooda ka fiicnaana iyagaa isa siiyey, gabdhaha oo agtooda ka liitayna ilaahay bay siiyeen oo carruur bay sugeen. markaasay carruurtii ilaahay ay siiyeen waxay ka dhigeen gabdho soo maa. saas daraaddeed baa ilahay wuxuu yihi tilka idan qismatun diiza, waa qayb dulmi ku salaysan oo mabda' asalkiisuba sooma khaldana. asalkiisuu khaldaye laakiin marka haddana khaladkii aad ka run sheegi weydood sii khalado waa ka daraya. mar kale fii suurati alxadiid waa ka ilaahay tabaaraka wa tacaala nebi ciise kuwii wadaadadii raacay dadkii raacsanaa markuu ka hadlaayay khaladaadkay galeen wajacalnaa fii quluubi aladiina itabacuuhu ra'fatan waraxmatan warahbaaniyatan ibtadacuuha ma katabnaha calayhim ila ibtigaءa ridwaan illah famaa racawha xaqa ricaayatiha. bidcay samaysteen, bidca aan ilaahay amrin bay la yimaadeen. bidcadii markay samaysteen waa khalad soo maha, haddana bidcadii bayna ilaalinin oo kusii xadgudbeen. maxaan ula jeednaa marka? waxaan ula jeednaa hadhihina adeeroo xoriyatu tacbiirkan ay ka hadlayaan hadduuba khaldan yahayba inaan isaga sii gallo oon kusii radino maxay macno leedahay? qur-aankaan ka qaadanaya, asaaliibta qur-aanku wax ku radiyo ayay ka mid tahay. taa markaan ka gudbo qodobka labaadi waxa weeye waxaa la yidhaahdo xorriyadda hadalka. xorriyadda hadalka taqriiban waa mas'alo asal ahaan ka soo jeeda, diinteennu way qabtaa laakiin dawaabid bay leedahay. ayaga laakiin gaalada marka la fiiriyo qaabkay u dhigeen iyo qaabkay ugu taalla marka la fiiriyo asal ahaan waxay xoogaysatay fikirkani markii kacaankii yurub iyo nahdadeedii markay ka hoos baxayeen kiniisadda oo ay bilaabatay fikirkan ilxaadka iyo diimaha dhan in la inkiro kiniisadda laga tago. markeeda hore diin quban ma ahayn. markaasay bilaabatay waxa la yidhaahdo xorriyadda hadalka oo zanaadiqadii iyo mulxidiintii diinlaawayaashii inay jaanis u helaan inay wixii diin ahaan loo haystay oo dhan say doonaan uga hadlaan. laakiin gadaal dambe markay qawaaniin ka dhigeen markii dambena ayba
qawaaniinta dawliga iyo mawaahiiqda caamka geliyeen cuhuudda waxaan la yidhaahdo markay geliyeen waxaa u soo baxday xorriyada hadalku sidaa furan haddii loo daayo macquul maaha gaal iyo muslim waxay isku waafaqsan yihiin ruuxu siduu doonu isaga hadli karaa macquul maaha sidaas daraaddeed ba waxay ku xidheen dawaabid iyo shuruud loo baahan yahay in la ilaaliyo qawaaniinta faransay ku taallaa qawaaniinta dawliga ay dhahan bay ku taallaa waxay yidhahdeen markaad hadalka xor u tahay waa inaadan dadka kale xuquuqdooda aadan ku xadgudbin soo sharti ma ah dadka kale inaadan xuquuqdooda ku xadgudbin waayo kow midda labaad weeyaane hadalkaaga xorta waa inuusan karaahiye nacayb abuurin midda saddexaad weeye waa inuusan keenin waxa la yidhaahdo altaxriid alcunsuri ama tamyiis kala soocid bulshada la kala sooco ama cunsuriye waa inuusan hadalkaagu keenin midda afraad weeye amnulqowmiga waxa la yidhahdo masaalixda caamka ah waa inuusan hadalkaagu uusan dhibaato u geysanin hadduu meelahaa taabto hadalkaagu xor ma tihida markaa waa lagu maxkamadayn waana lagu qaban yaa qoray iyagaa ku xidhay macquulna maaha ruuxu siduu doonu isaga hadli karaa macquulba maaha ayib intaa markaynu fahanno isla qawaaniintoodii baa shuruudda u dhigaysa hadalka oo xorriyatu tacbiirka iyo xorriyatulkalaamka u dhigaysa markaan u nimaadno waxaan hadda ay sheeganayaan oo ah cayda nebiga sal alla alayh wasalam iyo diinta islaamka caydeeda in la yidhaahdo xorriyatu tacbiir bay ka mid tahay waa been iyo munaafiqnimo waaye reer galbeedka sidoodaba iyo gaalada qiyamka ay sheegtaan mabaadida ay sheegtaan dhaqan wanaagga ay sheegtaan waxay burburtaa imtixaanka ugu horreeya markuu ku yimaaduu burburaa ilaa markii hore musayaf ah feeg buu ahaa markii horeba faalsu ah waxba aan ka jirin saas daraaddeed wax yaroo imtixaana hadduu ku yimaado waa dumaya haddaan marka dhowr tusaale soo qaadanno maalan saxiifadan sharli la yidhaahdo ee nebiga sal alla alay wasalam sawir gacmeedka ka samaysay ee la difaacay hadda ka hor waxaa dhacday 2009kii nin saxafi ah ayaa wuxuu sawiray sawir uu yahuudda wax kaga sheegayo wuxuu ku qoray saxiifadda sharli lafteeduu ku qoray ninkii isaga ahaa waa la maxkamadeeyey shaqadii baa laga eriyey waa saxiifadda hadda nebiga sal alla alay wasalam sawir gacmeedka ka samaysay haddana la leeyahay waa xorriyatu saxaafa waa xorriyatu tacbiir ayib yahuudda markii wax laga sheego ma aha miya ka soo tag 2019kii maxkamad faransiiska baa 2 nin ayaa maxkamad la saaray 2 nin waxaa lagu eedeeyey waxay gubeen sawir ay u ekaysiiyeen madaxweynaha faransiiska Macron ayay gubeen mudaharaad iyagu ku jira maxkamad baa la saaray waxaa maxkamad lagu saaray madaxweynihii baad meel kaga dhacdeen alashaan sawirkiisii baad gubteen ayib madaxweynaha sawirkiisuna waa muqadas nebi maxamedna waa xorriyatu tacbiir miya soo ma la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan soo ma waa alkayl bimikyalayn waa mas'alo kale oo caanoo la wada yaqaano reer galbeedkao dhanna taqriiban ay muxuu ahay ka wada siman yihiin masale waxaa la yidhaahdo xasuuqi yahuudda oo loo yaqaano holocaust soo maa almaxraqa alyahuudiya hitler baana baabi'iyey oo na gubay bay yidhaha masale taariikhiya waay qadiya taariikhiya oo la niqaashi karo oo ma jirtaa ma jirto ma xaqiiqo ka ama la buunbuuniyo laga doodi karo waay mutacalimiinta aqoon-yahanka siyaasiyiinta falaasifada reer galbeedku yahuud sheegashada ay sheeganayaan hitler baana baabi'iyey oo ay jarmalka ku baadaan ilaa hadda iyo yurub ku baadaan mutacalimiinta reer galbeedka iyo madaxdoodu shaki ma gelin karaan walaa joornaaladoodu kama hadli karaan walaa warbaahintoodu hadal yar oo qalloocan kuma dhihi karayso nin la yidhaahdo la dhihi jiray muxuu ahaa roger jarudi oo baaxith ahaa qoraa faransiis ahaa ayaa hadda ka hor wuxuu ka qoray arrintaas sheegashada holocaustka la yidhaahdo inay wax badan ka khaldan yihiin
caam bay ahayd waadna garanaysaan dad badani muddo dheer baa maxkamad lagu dabawaday yahuud baa dacwaysay reer yurub oo dhan baa dacweeyey maxkamadihii baa isugu tegey ilaa meeshii looga lagaga soo hadhay ayib qadiyad taariikhiya qadaayaadka taariikhda soo maray sideedaba ma jiraan saa ma u jiraan uma jiraan waa qadiyad taariikhiya waa laga doodi karaa laakiin reer galbeed kamana hadli karaan shakina ma gelin karaan xasuuqa yahuuddu sheegato ayib xorriyatu tacbiir weeye maad ka hadashaan maad qirtaan maad qoraallada maad wax ka qortaan maxaa idiin diiday maad dhiirataan nebi maxamed baad ku dhiirantihiin iyo diinta islaamka maad ku dhiirataan dhacdada yartee taariikhiga maad ka hadashaan ma jirto waay marka waxa weeye annagaa u tabaryar wey marka waxaa ka mid a maalan xijaabka iyo niqaabka waad ogtihiin oo faransiiska wuu mamnuucay 2014 iyo 2017 golaha sanadka ee faransiiska oo waliba aad looga hadlay mabaadi'da calmaaniyada oo jamhuuriyadda faransiiska iyo reer galbeedku baa ku taagan yihiin adduunkana ay u musaafuriyeen oo dadka ku qasbaan waxay leedahay ruuxa sidiisaba caqiidadiisa iyo labiskiisa waa inuu xor u yahay mabaadi'da dimuqraadiyada asaasiyaadka xorriyadda shakhsiga ka mid laakiin markay timaado gabadh muslimadoo indha shareeran ama xijaab qabta xorriyatu tadayunna ma jiro xorriyatu lcaqiidana ma jirto xorriyatu lcibaadana ma jirto waa meelaha kale waaye maxaa xijaab iyo baarlamaan kala galay maalin dhawaad arkayseen gabadh la dhihi jiray magaceedu ahaa maryam jito soo maahayn 19 jir buu ahaa cumrigeedu waxay ka soo muuqatay telefishinka faransiiska ninkii wasiirka ahaa arrimaha gudaha faransiiska ayaa wuxuu yidhi waan wareeray oo taagnidaaban ka dhici gaadhay markaan arkay gabadh xijaaban oo ka soo baxday gabadhu khimaar bay qabtaa gabadh khimaar qabtoo telefishinka igaga soo baxday markaan arkay dhulkaan ku dhici gaadhay kulaha saadim shaydaankiisii baa naxay soo ma ila shaydaan baa ku jira shaydaankii waa xijaab ka naxay wax kale maaha isla hadda 17 September 2020 hadda ah isla gabadha lafteedu waa gabadh ma aha dadka faransiiska tagay ma aha hooyadeed iyo aabeed waa catholic waaye waana faransiis dhalada waaye ayadaa islaamtay gabadhu jaamacaadka faransiiska kuwa ugu waaweyn mid ka mid loo yidhahdo jaamacad Sorbonne ardadeeda ayay madax u tahay oo doortay gabadhu marka niqaab bay khimaar bay qabtaa waxaa loogu yeedhay fadhi baarlamaanka faransiiska oo lagaga tashanayo mustaqbalka ardada maadaama ardadii ay iyadu madax u tahay markay meesha soo fadhiisatay gabadhii baarlamaankii in badan oo ka mid ah kabaha qaato iridaha ka yaaca ka dhacday waa la diday sida libaax loo galay ya farad min qaswara ya xubur mustanfira gabadh khimaarkeeda baarlamaan dhan oo dowladeed kala carar oo kala yaaca soo wax la yaab lama war aaway dimuqraadiyadii aaway waxaad sheeganayseen aaway xorriyaddii aaway ma jiro marka waxaad garanaysaa beenta iyo marka munaafaqada xataa mabaadiday iyagu sheeganayeen iyo say ugu munaafaqaynayeen markuu islaam yimaado waa qaab markay laakiin cid kale iyo dana kale ay tahay waa qaab kale waa madaxweynahan faransiiska hadda Macron maaldhowd waa kii dhihi jiray diinta islaamku waa diin mushkilo adduunka ku nool mushkila haysata kadibna waa ka iclaamiyey waxa uu ku magacaabay al-izaliya al-islaamiya al-infisaliya al-islaamiya oo macnaheedu yahay qawaaniinta jamhuuriyadda haddaadan ogolaanin oodan qirin oodan ictiqaadinin xataa qalbigaaga aad ka ictiqaadin muujso kaliya maaha faransiis ma ahaan kartid akhiiran maaldhow waa ka u yeedhay hay-adihii muslimiinta u yeedhay dhammaantood 15 beri buu siiyey wuxuu yidhi 15 beri baad haysataan waxaad keentaan qawaaniin aada islaamka ku waafajinaysaan mabaadi'da jamhuuriyadda 15 beri baad haysataan walaadu isweydii aaway calmaaniyadu waxay ku istaagtay bay dhahaan wax la yidhaahdo sinaan iyo maxay iyo xorriyad iyo xuquuq miye
ya cadaalad away marka wixii ma jiro khayr allah siiyo ninkii la dhihi jiray Erdogan laba kelimo leeyahay waa ninka hadalka ugu fiican Macron ku yidhi mar wuxuu yidhi horta edab male waad edab daran tahay buu ku yidhi una edab daran yahay ficlan marna wuxuu yidhi way ka sii fiicnaydoo wuxuu yidhi caqliga Macron wuxuu u baahan yahay in la baaro horta ma fayow yahay mise waa waalan yahay waana sax madaxweyne dhan intuu soo istaago dadkiisii meesha la yidhaahdo faransiisku yurub waddanka muslimiintu ugu badan yihiin waayo soo saa ula socotaan taqriiban 2 bilyan oo muslima intuu ka xanaajiyo ayuu haddana maalmo kadib intuu soo fadhiisto meesha la yidhahdo muxuu aljaziira soo fadhiisto ayuu wuxuu leeyahay anigu islaamka collamay marka miyuusan maskaxaan jiranayn waa jiran yahay sidaas daraaddeed masaladu marka waxa waaye ma aha xataa waxaa la yaaban bal u fiirsa hadda baarlamaanka faransiiska miyay iga dhammaatay mar hore laakiin 20 daqiiqa la yidhi adiga mid baa kaa hoos baxday 5 baad iska tuur baarlamaanka faransiisku maaldoodii tu fadhiistay ayuu wuxuu dowladda turkiga ayuu wuxuu ku eedeeyey xasuuq ay ka geysteen xilliga Uthmaaniyada armanka ay u geysteen ilaa ay haddana faransiisku wuxuu ictiraafi la'yahay xasuuqi uu ka geystay wadamada muslimiinta gaar ahaan Jazaa'ir 1 milyan oo muslim ka badan buu Jazaa'ir ku dilay waxaa laga kari la'yahay ictiraaf khaladkaad gashay xasuuqaad gashay turkidana wuxuu leeyahay arman baad baabi'iseen oo leysay marka waxa weeye la jiifiyana bannaan la joojiyana bannaan qawaaniintaasaa laynagula dhaqmayaa cunsuriya haddaad maqasho waa iyaga wixii ay ku faani jireen oo dhan baa burburay Macron waka Trump way idinka arkahay odaygii wareersanaa dowladii adduunka dimuqraadiyada dowladii sanka ka gelinaysa caalamka ayaa maanta sida aragteen u taala oo odaygeedii soo istaagu leeyahay waa la ixaday weliga iyo Allah biyad arag mucaarad la waa la xaday waa la arkay welig laakiin madaxweyne la waa la dhacay iyo qayb sanaanta iyo meeshay marayaan iyo wixii la inagu xuqinay weligeed wataa weligeed wixii aniga yaani wax way muslimiinta guud ahaan runtii way og yihiin waxani wuxuu yahay laakiin qolo yar oo kadsoon nimanka liberaaliyiinta la yiraahdo iyo xalmaaniyiinta iyo munaafiqiinta la soo diray muslimiinta sheegtay ee aan waxba fahmaynin waxa iyagu soo sheegay waxba aan fahmaynin ayaa waxaan dhihi lahaa war way ceeboobeen nimankii wixii ay qabeen shaatigiina iyaga iska furee dimuqraadiyana ha sheeganina calmaanimana ha sheeganina liberaalinimana ha sheeganina wixii waa gubtay waxaan ku khulaasayn lahaa ku soo gabagabayn lahaa Yurub iyo reer galbeed waa lumeen ruux lumayna in loo gurmado muday warka murtidiisu aynu u gurmano Yurub waa luntay waana rogmatay hal badbaadiye islaam baa badbaado u ah sida sheekhu sheegay islaamka aan ka dabageyno badbaadino bini aadan muxuu ahay in la dhashay weeye isku aabaynu nahay Soomaa isku aabaynu nahay nimanka aan ka daba tagno soo qaban aad baan ugu faraxsanahay waana loo baahanyahay muslimiintu مواقفta hadda sheekhu ka sheekeynaya waxa ugu yaraan qaban karna inaan qabanno waxa aad ii cajabiyay muslimiinta ayagu hadda waxay gaaladu raaliga ahad waxay hadda yaani aad isugu dayeen kacdoonka muslimiinta iyo cunaqabataynta faransiiska lagu sameeyay iyo faa'iido weyn bay leedahay Denmark iyo dawladihii Yurub ee hore bilaabay soo garanaysa way ka carreen hadda maalda waxaan arkay mid misxab saaxiib gubi rabay oo meesha la yiraahdo Belgium oo dawladii masaafurisay marka waa gubteen faransiiskani hadda waa gubtay dhaqaalihiisa khatar baa gaadhay walow isgeejinahay khatar baa gaadhay waxoogaanaha ictiraafin buu isleeyahay Denmark waad garanaysaan markii cunaqabataynta lagu sameeyay Yurub oo dhan baa u soo gurmatay dhaqaalaheedii baa dhulka galay waa inta ugu yaraan ku dagaalami karna waa dawladihii bay u yimaadeen oo leeyahay war naga qabta shucuubta
masar tag sacuudiga tag halkan tag ma madaxba aniga jeebkayga lacagta ku jirtay ila maamuli karta ya anaa garanay ciddaan wax ka gadanaya waxaa cajab lahayd oo ku khatimaya nin muslim ah oo khamrada ka ganacsada khamruu iibiya ayaa khamradii faransiiska ka soo baxdayna meesha u taalla khamrooyinkii kale dukaankay u saaray tii faransiiska ka soo baxday wuxuu ku dhajiyey bandage buu ku dhajiyey lama iibsan karo ayaguna waxay rabaan inay muslimiinta ka dhaadhiciyaan waxaan qaska wadee dagaalka wada waa asal raac waa argagixiso war xataa kii khamrada gadayay baa khamradii faransiiska gadi laha waxni waa dareen muslim waaye caasi ha ahaado khamro ha gado doofaar ha dhaqo wuxuu dooni ha sameeyo laakiin marka muqadasaadkiisa iyo diintiisa la taabto waa ruux muslim oo iimaan leh soo maa iimaankiisaa dhaqaaqaya marka khamrada ha diido faransiiska inuu gado tan kale ilaahay baa kala xisaabtamay jazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قضب كان كهذا كيف تنصر نبيك انت إنان قارين علماء خير الله جزاهم الله خيرا سفي عن بين ودرشيه waxyaalo badan oo runtii fawaa'id badan ahaa oo macluumaadana waana siiyeen bal waxaan dhihi karaa mowduucii oo dhan ba culimmadu iyaga qaatay hadalladii hadda laba eray oo ugu dambeysay sheekh maxamed cabdi umal jazaahu allahu khayran oo uu ku soo gebagabeeyey yani isdiwaajiyatu lmacaayiir sida nimankan tacaamulkoodu u kala duwan yahay baa waxay soo xusuusisay wakhtigaanu ardada ahayn inagoo fasal ku jirna fasalka dhexdiisii wax ka dhacay nin macallin ahoo fasalka noogu jiray ayaa wuxuu ka sheekeeyey mudaaharaad dadkan falastiiniinta ah oo dhulkooda la haysto ay sameeyeen oo markaa hutaafaadkoodii iyo hadalladay ku qaylinayeen waxaa ka mid ahaa yuhuuddu dhulka iyaga ha ka baxdo qodob ay soo saareen umamulmutaxida bay yidhaheen qaraar ay soo saareen qaraarka raqamkaas lahaa ha tixgeliso saasay ku yidhaahdeen waa u jawaabeenoo waxay yidhahdeen qodobkaas annaga nama khuseeyo qaraarkaas yahuudiyaa odhanaysa adinkuu idin khuseeya adinku dhulka ka guura nin mid arday ahayoo nala joogo wado dowladahan hadda afrikaanka biniin inuu ahaa baan u malinaya ayaa xanaaqay markaasuu shufu haadihi lwaqaaxa buu yihi marka waqaaxadu waa hadalka xaqana ka fog xishood la-aantana ah macallinkii baa cabaar amase wuxuu yidhi waqaaxa maaha qofka xoogga lihi luqadiisa waaye marka hada luqatu lqawiy marka waxay nagula tacaamulayaan xoog bay isbideen qofka markuu xoog leeyahay caqli ma jiro cadaaladina ma jirto taa markaan ka gudbo mowduuca markaan galno kayfa tansuru nabiyaka sala allahu calayhi waaalihi wasalam qaabkee baad rasuulka ilaahay ugu gargaari kartaa su-aashu waa saas qoraahduna waxay ku wajahan tahay qof kasta oo muslim ah qof iyo tabarti iyo taagti iyo awooddiisu intay la eg tahay kayfa tansuru nebiyaka waxaa ka horeeya nabigu horta nusro ma nooga baahan yahay nacam waa nooga baahan yahay waana waajib weliba nusrada nabiga loo gargaaro sala allahu calayhi wasalama diinkiisana loo gargaaro waa waajib ummadoo dhan bayna waajib ku tahay weliba macluumun min addiini bidaruura dadkoo dhan baa wada garanaya inay sidaas tahay masaladu marka hadda waxay tahay kayfa tansur qof walbow sidee baad ugu gargaari kartaa siyaaro badan baa nabiga loogu gargaaraya nabigu markuu noolaa sala allahu calayhi waalihi wasalam nusradiisu waxay ahayd in la rumeeyo atbaacda nabiga raacday in la badiyo dacwadiisa in loogu gargaaro naf iyo maalba in loo huro lala dagaalamo ciddii nebiga diiday diinkiisana diiday sidaa bay ahayd
hadda waxa uun loo gargaarayahay waa diinkii nebi moxamed la yimi sala allahu calayhi waaalihi wasalam in loo gargaaro ilaa qiyaamu saaca nebi moxamed nebi kama dambeeyo ummadihii hore ambiyadu way kala dambayn jireen markii nebi tago nebi kalaa iman jiray nebi moxamed cidina kama dambayso ilaa qiyaamu saaca diinka cidda la rabaa inay qaado ay xambaarto oo nebi moxamed mas-uuliyaddiisi iyo ammaanadii u waday qaada ee dadka gaarsiisa waxaa weeyaan waa ummadda muslimiinta wa haadihi nusratuhu nusradiisuna waa taas wujuuh fara badan baa loogu nusrayn karaa yacni waxyaalaha hadda dhacay oo laga hadlayo arrimahan hadda keenay aflagaadada iyo nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam cirdigiisii iyo sharaftiisii iyo in wax laga sheego waxyaalo badan baa loogu gargaari karaa gacan ka hadal laakiin cid kasta uma furna gacan ka hadalku iyo dagaal way noqon kartaa waxay kalay noqon kartaa in cilmi loogu gargaaro oo nabiga sala allahu calayhi wasalam makaanadiisii iyo maqdiradiisii iyo cadamadiisii iyo mansilada ilaahay agtiisa uu ka iyo cidduu yahay sida culammadu ka soo hadleen la caddeeyo waxaa ugu yar oo ugu dambeeya qofku waxyaalaha nebiga loo geysanayo inuu naco oo inkiro oo qalbiga ka naco oo ciddii sidaa samaysay nebiga ku aflagaadootay uu ayagana u caroodo weliba umuurahaasoo idil oo xadiidkii uu soo ururinayo xadiid saxiixu muslim ku yaalay oo laga warinayo ninka la yidhaahdo abu saciidin alkhudri radia allahu tacaala canh uu leeyahay nabigu sala allahu calayhi waalihi wasalama man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastadic fabilisanih fain lam yastadic fabiqalbih qofkii munkar arka waana munkar acdamu munkar weeye qofkii arkaahi ha zuuliyo munkar waa in la zuuliyaa qofkii adin iyo gacan ku zuulin karaahi ha zuuliyo waa qofka saaxiibu suldada ah qofka adin wax ku suulin kara fain lam yastadic fabiqalbihi hadduunan awoodin fabilisaanihi carabkiisa ha ku zuuliyo waa qofka ahlu cilmiga ah fain lam yastadic fabiqalbihi qalbiga ha ka naco waa caamatu nnaas wixii aan suldana lahayn cilmina lahayn iyagu marka arrintooda waa qalbiga sidaa darteed dadku saddex qaybood buu noqonayaa marka xaaladahan oo kale qaybi waa qaybta suldada iyo amarka iyo awoodda leh oo madaxda ah muslimiinta madaxda ah qoladaasi waa inay ka jawaab celiyaan ama siyaasiyan uga jawaab celiyaan ama hadda sida dhacday wadamo fara badan muqaatacada iyo calaaqaadka muxuu ahaa diblomaasiga iyo kuwa tijaariga ay la lahaayeen ay u gooyeen ay maaragtay muxuu ahaa kaga fal celiyaan ama mararka qaarkood dagaal hadday noqoto hori weyso looga fal celiyo dadka madaxdaa sidaas baa laga rabaa inkastoo hadda ayna noo muuqan madaxda muslimiinta cid arrintaa u qumi karta haddii laga reebo labadii kelimo iyo wixii la midka ahaayo sheekh maxamed cabdi cumar uu ka sheegay ninka la ordogan waa wax weyn xaqiiqatan wax weyn bay ahayd kuwii kale intaana way kari laayihiin taariikhda islaamka markii dib loo raaco sida ay ahaan jireen madaxda muslimiintu waxyaalaha noocaas oo kale uga falceli jireen baa waxaan jeclahay inaan soo qaato hal tusaale tusaalaha wuxuu ka dhex dhacay nin muslimiinta madax u ahaa oo khaliifatu lmuslimiin ahaa oo la dhihi jiray haaruun arashiid ayaa waqtigiisii muslimiinta iyo niman la dhihi jiray roman oo boqortooye ahaa oo muslimiintii iyaga dagaal ka dhexeey oo mushrikiin ahaa ba waxaa ka dhexeeyey cahdi iyo ballan sulxi baa ka dhexeeyey sulxiga marka iyo wixii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahay in ayagana la daayo loo nabadgeliyo yacni waxaa weeyaan maamulkooda iyaguna ay muslimiinta ku xoojiyaan ay siiyaan xoolo jizya la yidhaahdo naag baa boqorad ka ahayd naagtay sulxiga wada galeen naagtiibay inta iska tuureen bay nin isku bedeleen ninkiibaa marka waxaa galay nooc guruur ah iyo isla weynan iyo inuu wax badan muxuu ahaa uu diidi karo ka gilgilan karo markaasuu u soo qoray
haaruun الrashiid warqad u soo qoray oo weliba handadaad uu bixinayo ugana dalbayo boqoraddii isaga ka horreysay oy beddeleen xoolihii ay siin jirtay inuu soo celiyo oo weliba uu naftiisa ku gato naftiisa inuu ku gato haddii kale uu cawaaqib xumo waajahayo oo weliba ku handaday uu yidhi waxaa weeyaan haddii kale dagaal u diyaar garow hadalladuu yidhi waxaa ka mid ahaa فإن الملكة التي كانت قبلي حملت إليك من أموالها ما كنت حقيقا بحمل أمثاله إليها وذلك من ضعف النساء فإذا قرأت كتابي هذا فاردد إلي ما حملته إليك من الأموال وافتدي نفسك به وإلا فالسيف بيننا وبينكم هذا لكم محوية وعوصا قري بقردي أنيق إيقه الرئيسي حوالا بضم بيكو كانتي أي حقيقة أهان لهيد أدوكو إن أدو كنتي فيري يعني غرور كميشو قاري حواليه بقردي أنيق إيقه الرئيسي أديق كسين جرتي إن كبرا إن أتساعدي بحقاق أهيد واجب كاقا وحق سارنا أهيد سيدا درتيد بو يري مرك haddii kitaabkaygaani ku soo gaaro warqadaydaana haddii ku soo gaarto xoolahay ku siisoo dhan soo celiya naftaadana ku furo haddii kale seef waa naga dhexaysa waxaan u malaynayaa yani khidaabka noocaas oo kaleeta adinka naftiinu cara inuu idinku beeray wujuhdiinaan u jeedaya xaqiiqatan khidaabka noocaas oo kale wuxuu la mid yahay khitaabu thaclabin ilaa asad dawaca madow weliba khidaab dawaca madow oy libaax u dirtay ficlan sida hadda wujuuhdiina adinkuba aada u nacdeen aad buu uga xanaaqay haaruun الrashiid khad buu u yeertay iyo qalin sida caadatan dadka madaxda ahi waraaqahay isu soo diraan waa la ixtiraamaa meel baa la dhigtaa warqad kale loo jawaab celiyaa warqaddii uu keenu dhabarka u rogay markaasuu dhabarka uga qoray jawaabtii maxay ahayd bismi illaahi الraxmaan الraxiim buu ku bilaabay bismi illaahi الraxmaan الraxiim min haaruun amiiri الmu'miniin ilaa naqfuur kalbi الruum laqad qara'tu kitaabaka yabna alkaafira aljawaabu maa taraahu duuna maa tasmacuhu intaas keliya uu qoray warqadda boggeedii korowna ugu qoray waana u diray hadalku muxuu yahay khidaabkani wuxuu ka socdaa amiir almu'miniin oo haaruun ah wuxuuna ku socdaa naqfuur baa la dhihi jiray marka qaabkiisa iyo magaciisa way isu egyihiin markaa buu yidhi ilaa naqfuur kalbi الruum saasuu ku magacaabay xataa melik الruum ma oran kalbi الruum buu markaasuu yidhi kitaabkaagii waan akhriyey yabna alkaafira kaafir waa isdhalaa soo maha kaafir muqiimuu leeyahay laa qiimata lahu weliba kaafir xarbigihi laa xurmata lahu oo meeshii shiikhu uu sheegayey nafta iyadoo ka baxayso biyaha weysadaa xayawaanka kale xurmay leeyihiin waad uga gabaysanaysaa waad booranaysaa biyahan ayagaa siinay waad booraysanaysaa biyahan ayagaa siinaysaa laakiin kaafirka kuma jiro yabna alkaafira jawaabtu waa waxaad arki doonta intaadan maqal buu yihi isla markiibuu ciidan diyaariyey oo weliba hogaamiyey oo manaadiqda ay haysteen magaalooyinkii qaar ka qabsaday ilaa uu ku khasbay inuu baryootamo oo umuurtu sidii horay ahayd uu ku noqdo uma malaynayo madaxda maanta joogtaahi yacni mowqif sidii naqfuur ku ijbaarisay inuu u soo noqdo sidii hore baryootamo inay qaadan karaan u malayn mayo laakiin ilaahay subxaana wa tacaala casiis kama aha yani casiis kuma aha inuu ilaahay ka soo saaro ummadda muslimiinta ah kuwa mowqifkaas oo kala qaata ilaahay ha ka dhaliyo laakiin waxaan u sheegaynaa runtii gaalada waxaan u sheegaynaa way khaldameen nacam gaalada way khaldameen hadday moodeen muslimiintu inay dhimatay ma dhiman weli waa nool yihiin damiirkoodii iyo dareenkoodii iyo cilmigoodana turahaadkii iyo baadilkii iyo beentii la yimaadeen o dhan bay baabi'in
qolada madaxdaasaasaa laga rabaa. culummada waxbaa laga rabaa, horebaa culummadu u sheegeen inay caddeeyaan oo cilmigooda ay faafiyaan oo nabiga fadaa'ishiisii iyo maxaasintiisii iyo makaanadiisii iyo ilaahay agtiisa wuxuu ku lahaa ay faafiyaan ooy dadka u sheegaan oo baadilkaasoo dhan baabi'isa. intayada kaleete oo caamatu nnaas ah maxaa nala ka rabaa? inaan qalbiga ka nacno waxa ay sheegeen oon diidno oon inkirno. ninkii hadda waxaa weeyaan sheikhu uu sheegay oo khamrada iibinayey inuu khamradii kalena reebo tii faransiiskana uu maaragtay muxuu eke saaro waxaa ka dhaliyay damiirkiisa xanaaq. sidaasoo kalena hadda ka hor waxaan maqlay nin bakistan madax ka ahaan jiray oo la dhihi jiray dulfaqaar cali buuto oo mufsid ahaa calmaani ahaa ayaa qolo waxaa jirta axmediye sheegata magacaa sheegata oo qaadiyaaniye la yidhaahdo oo rumaysan nebi moxamed nebi ka dambeeyey sala allahu calayhi waalihi wasalam inuu jiroo soo baxay. markaas baa waxaa lagu cadaadiyey inuu ictiraafo diin ahaan u ictiraafo wuu diiday. dadkii baa ku qabsado war adiguba waxba ma dhaantida mufsidaa tahaye ka war maxaad ugu diidaysaa baa la yidhi. mufsidka soon ahay inaan nebi moxamed khiyaano oon gadaashiisa nabi ka dambeeya aan qira igama suurowda buu yidhi. intaasuu karaa. waxaad marka adiga kari kartid oo nacayb ah inaad nacdid ood qalbiga ka nacdid oo weliba aad baratid diinkiisa oo sunnadii nebiga baratid oo shamaa'ishiisa baratid oo waxaa weeyaan aad baratid muxuu ahaa u tacasubtid oo waxay kugu abuuraysaa jacayl nabiga sala allahu calayh wasalama iyo saxaabadiisa aad jeclaatid. jazaahum allahu khayran. intaas baan aniguna hadalkayga ku soo gaabinaya wabillahi towfiiq. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن